wuxuu u yeeray xaaskiisa si uu la dardaarmo wuxuuna ku yidhi xanaanee oo daryeel carruurta waxaan dareemayaa inaan adduunka ka socdo maadaama ay xaaladeedu xun tahay in yar kadibna waa uu geeriyooday aabbuhu waa mid haddii noloshiisa qaybta ugu dambaysa ay ka taagan tahay nafta ayna ka bixi rabto mar walba faamilkiisa iyo carruurtiisa iyo xaaskiisa fiiriya aabbuhu waa laf dhabarta faamilka aabbuhu waa dhaxal aan la wada heli karin aabbuhu waa dhayman aabba noolow laakiin ra'yigaaga waa muhiim ra'yigaaga waa waxa dhan oo aan u samaynay qisadan fadlan ra'yigaaga nagula wadaag oo commentiga ku dhex raf السلام الله عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته إذا لهانتي نبى آديات بندين سلام يا صاحبة قروح البدن أنا كصاحبنا آلتنا يوتيوب كسر دواد مقال عصب وحيصله وأنا جاوا ولكن زكي طبعا محرجين كل جيل مدول بوين كم إذا إنه عافمات قبا الحمد لله إنه وايدين عافمات قبا ما أنت واحد هالكم أصف فلسطين إنك كشكيو قصة آدي وحنون بدن قلبي أنا تعبان يسا وحفر بدن اللي جبران كرو وحنا بقول كي بقول إن كرر على الجنينة يا قصوين كقروح البدن وادي جبرتين وأنا كين حكي بقول كي بقول يكرر على النقطة إن شاء الله ما أنت قصة إني وده صفي عنو نجست نجيهنني أما هي رأيي إيوه واحد فكر كينا أنا ولو بهاي مقالك لايك صار channelkana subscribe inoogu qabo haddii aad ku cusub tahay thank you very much qisada inoo bilaabo qiso xanuun badan wuxuu si aad ah u jeclaa xaaskiisa waxayna haysteen laba caruur ah wax kasta uu awoodo wuu siin jiray balse xaaska marnabo maqsuud kuma ahayn inkasta uusan ninka taajir ahayn haddana wuxuu la wadaagi jiray wax kasta uu heli karo haddii uu u soo iibiyey dhar waxay ku oran jirto waxa kani wax jira ma ahan waa laga ilbaxay dharka noocaan oo kale ah ninka wuu dhoola caddayn jiray xaaskana wuxuu ku oran jiray maalin ayaan taajir noqon doonaa waxaanan ku iibin doonaa dhammaan waxyaabaha qaaliga ah oo aad adiga u baahan tahay haweeneedu marnaba taleefon kama wici jirin ilaa ay mar wax ka codsanaysa ma ahe codsigeeda haddii uu fulin waayo way murmi jirtay ilaa uu xaalku ka gaara meel halis ah galab isagoo shaqadiisa ka soo rawaxay ayuu u soo iibiyey 1 kiilo oo hilib ah isagoo faraxsan oo isleh xaaska maanta ka yaabe oo caawa reerku si fiican ha u cashay kolkuu guriga gaaray oo uu xaaskii tusay waxa uu wado intay soo buday waxay tiri ma nin baad sheeganaysaa oo 1 kiilo hilib ayaad guriga keenaysaa masaliid baa taalo kadibna banaanka ayay ku tuurtay hilibkii ninkii aad ayuu u carooday balse wuu isdajiyey wuxuuna is yiri marnaba hoos ha u dhigin jacaylka aad reerkaaga u qabto xaqiiqatan barnaamijka dhantaalkiisa markaan inta ayaan ka dhigo like aabaha iyo hooyada isku aragti ma ahan isku meel ma fiiriyaan isku wax uma muuqdo like isku ra'yi ma ahan de ilaahay subxaanahu wa tacaala baana wuxuu ka dhigayba kontonley iyo boqollow like aabuhu eeg meeshuu fiirinayo hooyadu waxaa macquul ah haddii fiilayar isdaba marto haddii wax yar ee ayada jeceshahay ay weydo waxaa macquul ah barta ayada inay ku bilowdo qaylo oo ay tiraahdo xarigayga isii ifur walaalo gurigaan iskaga tago ilmihayga aan qaato waxyaala noocaas oo kale waa yacni dulqaadka dumarka iyo ragga intuu la kala egyahay laakiin nin iska xaajadiisa adag tahay aanan maaragta dad iska tabaryar ah 1 kiilo hilib gurigiisa usoo helay kadibna carrada lagu daray muxuu dareemi karaa wuu is yar celiyey wuxuuna dib u fiiriyey jacaylka uu qaba faamilkiisa love you aabo maalin ayuu xanuun ka dareemay cagta bidixda kadibna buro ayaa ka soo baxday 3 bilood kadib markii ay aad u weynaatay buradii oo xanuunkiina kusii kordhay ayuu cisbitaal tegey waxaana laga helay cudurka kansarka wuxuu ahaa sabab aan awoodin daryeel caafimaad oo wanaagsan inkasta uu aad u xanuunsanaa haddana wuxuu isku dayay wax kasta uu awoodo inuu faamilkiisa ku quudiyo aabbuhu waa mid haddii noloshiisa qaybta ugu dambaysa ay ka taagan tahay nafta ayna ka bixi rabto mar walba faamilkiisa iyo carruurtiisa iyo xaaskiisa fiiriya aabbuhu waa laf dhabarta faamilka aabbuhu waa dhaxal aan la wada heli karin aabbuhu waa dhayman aabba noolow 2 sano kadib xaaladdu waa ay ka sii dartay waxaana la dhigay cusbitaal lugti ayaa qaliin lagu sameeyey waana laga jaray gebi ahaan laakiin nasiib darro waxay ahayd xilli uu jirka ku faafay fayraska kansarka wuxuu u yeeray xaaskiisa si uu la dardaarmo wuxuuna ku yidhi xanaanee oo daryeel carruurta waxaan dareemayaa inaan adduunka ka socdo maadaama ay xaaladeedu xun tahay in yar kadibna waa uu geeriyooday inna lillahi wa inna ilayhi raajicuun inna lillahi wa inna ilayhi raajicuun haweeneydii labadii caruur maalmo ayay baroordiiq ku jireen 2 bilood kadib ayay xaaskii booqatay qabriga ninkeeda oo ay ag fariisatay iyada oo leh gacaliya wax kasta oo wanaagsan waad ii samaysay waxaad iila dhaqantay si naxariis iyo dulqaad leh balse waxa kaliya aad iga helayso waxay ahayd buuq iyo dagaal marnaba ma garowsan muhiimadaada iyo jacaylkaaga ilaa hadda oo aad naga tagtay goortii aniga aan noqday qof laga rabo cuntada
dharka, waxbarashada iyo waxyaabo kale oo badan. waxaan xasuustaa goortii aan tuuray kiilada hilibka, laakiin hadda ma hayo xitaa nus kiilo meel aan ka helno. waan tabnay maqnaanshahaaga, gabadhaadi yareed oohin ma joojiso iyadoo i weydiinaysa hooya aabbe ma soo laabanaya, allah kuu naxariisto ee cafi xabiibi, wabilaahi towfiiq. waa qiso aad iyo aad u xanuun badan. mar walbana faamilada Soomaaliyeed waxa kan wuu dhex imaadaa. hooyada iyo aabbaha isku aragti ma ahan. aabbuhu waa mid mar walba fiirinaya meel dheer. hadda haddii aan dhihi lahayn walaalkeenaan fariin u direynaa, gebi ahaanba dunidan ma joogo. waxaan leenahay allah kuu naxariisto, khabrigaagana allah kuu nuuriyo, noqo midka aan qarana jannatul firdowsa galo. adigaan i daawanayo oo qisadan daawanayo, maxay kula tahay qisadan? maxay kula tahay qisadan adiga hadda i daawanayo? laakiin ra'yigaaga waa muhiim. ra'yigaaga waa waxa dhan oo aan u sameynay qisadan. fadlan ra'yigaaga nagula wadaag oo commentiga ku dhex raf. aabbaha Soomaaliyeed wuu dadaalay, wuu kufay, wuu kacay, wuu istaagay asagoo kansar qabo, ilmihiisa wuu quudiyey, dhiiggiisu u miiray. haddana ugu dambeyn waxaa loo jiiday hooygii ama gurigii runta ahaa ee qabriga. hooyadina dib ayay shallayto uga gashay. marka halkaa gabdhow maxaan ka baran karnaa, ama halkaa ragoo maxaan ka baran karnaa? faamilka inuu dulqaad ku dhisnaado. dhagahaagu marnaba yaysan maqlin. waxaa jira faamil Soomaaliyeed ama faamil adduunyada dhan ku dhaqan oo isqabo aanan isku buuqin. dhagahaaga marnaba yaysan dhegaysan. waa la isku buuqaa, waa la isdagaalo, waa la isku gacan qaadaa. laakiin haddana mar walba waxaa loo baahan yahay dulqaad iyo samri in la iskula joogo. haddaad aragto hooyo 50 jir iyo aabbe 60 jir isla joogo, dulqaad iyo samri intaa kusoo wada gaareen. faamil la burburiyna macal ilaahay macnaha raalli kama ahan. marka qisadan waxaan ka baran karnaa dulqaad in la yeesho. wax walboo nafta ama nolosha kusoo biirin in loo dulqaato. waa walaalkiin Zaki oo idin leh qisooyin caynkaan oo kale waa idinla soo wadaagi doonaa. subscribe igu heli, like igu dhiirigeli. muuqaalka xiga intaan ku kulmi doono. assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu. ra'yigaaga commentiga ku dhex raf.